iyadoo isbuucidii la soo dhaafay ay ka jireen xeebaha Soomaaliya dabaylo ku dhuftay doomihii kalluumaysiga ee ka jalaabanayay xeebaha Soomaaliya taasi oo saameyn ku yeelatay doomaha iskaashatooyinka kalluumaysiga iyo qiimaha lagu kala iibsado kalluunka qaybihiisa kala duwan taasi oo sare u kac ku yimid ayaa waxa inoo suura gashay in aan booqasho ku tagno kawaanka kalluunka degmada Xamarweyne ee gobolkan Banaadir iyo xarumaha iskaashatooyinka kalluunka si aan wax ugu ogaano saameynta dabaylaha ay ku yeelatay doomaha kalluumaysatada iyo dhibaatooyinka naf iyo maalba ah ee ka dhashay dabaylahaasi waxaana ka dhashay khasaaro isugu jiray naf iyo maalba waxaana sidoo kale la leeyahay dooman ay wateen iskaashatooyinka kalluumaysatada kuwaasi oo ka jalaabanayay xeebaha Soomaaliya xilligaasi qaar ka mid ah iskaashatooyinka kalluunka iyo ganacsatada kalluunka ayaa ka warbixiyay saameynta ay ku yeelatay dabaylahaasi ku dhuftay xeebaha Soomaaliya wallahi magay wallahi maxamed caraaya abdi waan marka malaay ganacsado marka hadda dabeel zaid jirto daweesha waxa keenayso badiga kacsan malaay soo qaal ku noqday wallahi hadda doomo badan la leeyahay oo bada dabeesha oo qaaday marka doomaas la leeyahay armaan anagoo magacayga Isaaq Xeedar Mayow waxaan joogaa kawaanka weyn ee Muqdisho waxaan ka midnahay ganacsatada oo suuqa kawaanka malaayga joogan oo malaayga cabiraan aad iyo aad marka kolay malaayga qiimaha dhaca waxa qiimaha sarifka oo kacay waxa keenay daweeshii oo loo yaqaan dabeel isib daweeshan anaga wiligeena way arki jirnay 6 bilood kadib waxayna soo maray 3 bilood oo dabeelana soo maray jirtay 3 bilood dabeelaha hadda gur jirnaa oo malaay la'aanta intaas keentay xogayaha iskaashatada Dankolmis Muuse Cabdicasiis Xaaji Dhurow ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ka soo gaaray dabaylahaasi saameynta ay ku yeesheen iyo sare u kaca ku yimid kalluunka duufaanada ama dabeelada xoog badan oo maanta badda Hindiya soo wajahday dhibaato aad u fara badan ee saameysay ilaa hadda ay muuqato waxaana naga saameysay doomankii oo isku dhaceen shawaagii oo isgaleen doomankii dhac soo gaari iyo dooman badan oo badda ku halaabay oo ku gadoomeen dadna waa ku laadaan waa ku dhinteen 3 doonyoda ku qalimatay hal 3 qafood markaba helay 6 qafood ilaa hadda waa ku laanahay oo dhibaatadaasna wayna haysataa qarash badan waa gelin waa raadin waa wayni doomankii kale ilaahay soo badbaadiyay oo maalmahaas oo badda ku sugnaayeen dhibaatooyinka ilaa hadda way saameynaysaa way haysataa dadka dhibaatooyinka shawaagihii way ka dhamaadeen doomankii oo qaar dhaawac soo wada gaari hadda waqti xaadirkaas oo xeebta la wada buuxo diyaar loo yahay marka insha Allah dhibaatooyinkaas aad u badan muddo 6 dabeelii socdeen oo intii badda oo banaanka joogtina gurmad sameeyeen dadkii gurmadka sameeyeen dhibaato soo gaartay dhaawacyo halis iyo matooradii oo cilad ka soo gaartay gaari xeebaha Soomaaliya ayaa waxa xilligan oo kale ka kaca dabaylo xoog badan oo saameyn ku yeesha iskaashatooyinka kalluumaysiga iyo ka ganacsiga kalluunka qaybihiisa kala duwan Muuse Abtoow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho